weliba ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja ayaa maanta waxay si adag uga hadleen hadal maalinkii shalay ka soo yeeray wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Gurey Barwaaqo taasoo ku sheegay in mas'uuliyiinta kala duwan ee xarumaha dawladda lagu amray in aanay la hadal warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha Somaliland balse kaliya ay la hadli karaan warbaahinta dawladda waxaana xogayaa warfaafinta xisbiga mucaaradka ee UCID Yuusuf Kaysa Cabdillaahi iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sadiiq Cabdillaahi Dhamme ay ku sheegeen go'aankaasi wasiirka mid buurinaya xeerka saxaafadda ee ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland isla markaana jideynaya in warbaahinta madaxa bannaan ay xogaha iyo macluumaadka ay u baahan yihiin ay ka heli karaan xarumaha dawladda waxaana hadaladoodii kamid ahaa sidatan ku mamnuucay in warbaahinta madaxa bannaan ee hay'adaha dawladda ay war u doontaan caburintii ugu dambeysay iyo dictatorshipnimo dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland ka soo horjeeda qodobka 7aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu u damaanad qaadayaa muwaadiniintu inay war helaan oo war ka helaan qarankooga iyo hay'adahooda dawladda oo war kana siiyaan warbaahintu iyadoo dastuurku u damaanad qaaday inaynu war helo oo warbaahintu soo tiriso in wasiirku uu jabiyo dastuurku yiraahdo warbaahinta madaxa bannaan hay'adaha dawladdu ma siinayaan war waxaan u aragnaa inay tahay tacaddi iyo caburin halkii ugu dambeysay haddii sidaa uu ku adkaystaan dawladda cusub oo dhacdana waxay noqonaysaa inay warbaahintu ay wararka u dootaan wadamada jaarka xamar iyo Eritrea mar haday qarankoogii ka waayeen war oo laga mamnuuco inay hay'adaha dawladda galaan oo loo ogolaado oo kaliya warbaahinta dawladda afkeeda ku hadasha inay wararka hesho waxaan ugu baaqaynaa wasiirku arkaa inuu iftiimiyo dib uga noqdo si degdeg ah dastuur jabinta iyo sharci darradana uu ka daayo dawladda cusubina waxay la kowsanaysaa nidaam dictatorship ah soo socda kan waa foorihii dictatorka arrimuhu hadday sidan ku sii socdaan oo caburinta iyo arrimaha asaasi ahaadaan waxa noqonaysaa in aynu u gacan galno dictator caburiyo ummadda oo aan la helin war iyo xogtoona qaranku halku maray wasiirku hadalka uu ku hadlay ee uu yiri TV-ga qaranka ama warbaahinta qaranku baa warka ay siinaysaa xukuumaddu hadal wuxuu ahaa dadka aad uga yaabiyay buu ahaa shakhsiyan aniga waxa iga sii yaabiyay Yuusuf Fahan dadka cidda uu ka hor lahaa hadalkaasi waa golihii wakiilada ee sharciyada inoo qaabilsanaa oo ansixiyay xeerka saxaafadda Jamhuuriyadda Somaliland wasiirka hadalkiisu anigu waxaan u arkaa inuu hadal iska ahaa ma garanaysaa hadal ka hor imanaya xorriyatul qowlka iyo xeerka saxaafadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo dastuurka dhinaca kale hoggaanka sare ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja ayaa iyagoo dhinacooda waxay si adag uga hadleen go'aankaasi wasiirka warfaafinta ka soo yeeray kaasoo ku sheegay in mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha dawladdu aanay la hadli karin warbaahinta sidoo kalena waxay faahfaahin ka bixiyeen ujeedada uu daaranaa kulan ay maanta la yeesheen madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan annagoo ka duulayna markaa dareenka ka yimid saxaafadda Somaliland runtii maanta arrinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waanu kala kulanay annagoo guud ahaan civil society-ga gaar ahaan Solja markii aan warbixinteeda ka hadlaynay madaxweynaha waa u bandhignay arrintaasi sidoo kalena wasiirka laftiisa iyo wasiirka xigeenka markii aanu ka nimid madaxweynaha isaga laftiisa waanu la kulanay arrinta waan kala hadalay runtii saxaafaddu xaq bay leedahay xuquuq bay leedahay xuquuqdaana waxa jideeyay xeerka saxaafadda Somaliland waa dal xeer leh 2004 baa la ansixiyay ilaa maanta xeerkaas shaqeeyo jira qodobada xeerkaasi waxay cadeynayaan saxaafadda Somaliland iyo kuwa ajaanibta inay xuquuq ku leeyihiin warhelida cid hor istaag karta haba yaraatay arrintaas xeer ku jideeyay dastuurkuna uu jideeyay haba yaraatay ma jirto sidaas daraadeed waxaan u aragnaa hadalkii shalay iyo cabashooyin maalmahan soo taagnaa oo suxufiyiinta laftoodu ka hadlayeen in ay yihiin arrimo u baahan in laga howlgalo oo xalkooda la doono si kastaba ha ahaatee hadalkii shalay uu ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Gurey Barwaaqo oo ku sheegay in mas'uuliyiinta laamaha dawladdu aanay la hadli karin warbaahinta madaxa bannaan ayaa haddii uu hirgalo waxa uu caqabad weyn ku noqon karaa shaqadii warbaahinta madaxa bannaan ee Somaliland ka howlgasha Cabdi Fataax Xasan Xuseen Xareed Kalsan TV Hargeysa.